sool iyo sanaag labadaa gobol in si dhammaystiran somalilan horta looga hoos saaro ama ugu yaraan boqolkiiba 80 laga hoos saaro kabacdi maaragtay danka galbeedka la maaragtay laga saaro gobolka awdal iyo qaybo ka mid ah maaragtay gobolka Burudijeex. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada saaxiibayaal. Barnaamijkeenan maanta waa barnaamij aad u muhiim ah laakiin sidoo kale aad iyo aad xasaasi u ah. Si wada ogtihiin horta kanaalkan waxaan kaga hadalnaa xogaha maaragtay siyaasadda iyo geopolitics ee caalamka ka dhacaya gaar ahaan kuwa khuseeya ama saameynta ku leh dalalkeena ee maaragtay geeska Afrika ka socda. Sidaa darteed barnaamijkan maanta waxaan ku dul istaagi doonaa si khaasa khilaafka u dhexeeya Somalilan iyo Soomaaliya ee 35 sano imika jirsaday. Waxaan u kala qaybin doonaa laba qaybood. barnaamijkeena laba qaybood baan ugu kala qaybin doonaa khilaafkaas 35 sano Somalilan iyo Soomaaliya ka dhex taagan. qayb waa wixii ka horreeyay 26 bishii 12 2025 iyo wixii ka dambeeyay. wixii ka horreeyay 26 bishii 12 khilaafka Somalilan iyo Soomaaliya wuxuu ahaa khilaaf loo kala dowladaha maaragtay waaweyn ee caalamka iyo kuwa maaragtay Afrika kamay lahayn wax dan ah maaragtay dana waaweyn oo sidaas kamay siin lahayn maaragtay khilaafka u dhexeeya labadaas dal. laakiin wixii ka dambeeyay 26 bishii 12 khilaafkii Somalilan iyo Soomaaliya wuu caalamiyoobay ama wuxuu noqday international. waxa la qadiyadii Somalilan waxay tagtay miisaskii waaweynaa ee maaragtay siyaasadda caalamka iyo geopolitics lagu jaangoyn jiray. sidaa darteed dal kasta oo maaragtay dalalkii waaweynaa ee adduunka ama maaragtay kuwii maaragtay Afrika ama kuwii bariga dhexe dal kastaba wuxuu la saftay dhinaca uu dantiisa ka arkayay. dalal badan waxaa jira Soomaaliya la saftay oo maaragtay difaacay inay maaragtay Somalilan tahay qayb ka mid ah Soomaaliya iyo dalal badan oo kasoo horjeestay oo maaragtay Somalilan inay xaq u leedahay inay dal noqoto taageer. Shiiniiska iyo dowladda Mareykanka waa labada dowladood dunida ugu maaragtay quwadda weyn leh. Mareykanka oo ah dalka maaragtay adduunka ugu awoodda weyn leh dhaqaalaha hadday noqoto ciidan hadday noqoto siyaasadda hadday noqoto tiknoolajiyada hadday noqoto sirdoon hadday noqoto wax kasta hadday noqoto wuxuu taageeray danka Somaliland. dalka labaad ee maaragtay ku soo xiga Mareykanka oo maaragtay ah Shiiniiskuna wuxuu taageeray danka Soomaaliya. dalalkii ku yaalay maaragtay bariga dhexe gaar ahaan khaliijka carabtu mid kastaba wuxuu taageeray dhanka ay maaragtay uu ka dhex arkay danihiisa siyaasadeed. saas markay tahay waxaan isdul istaagi doonaa markaa dalalka Soomaaliya taageera iyo Soomaaliya qorshahooda Somaliland ku aadan yahay. Soomaaliya berigii hore siyaasadda Somaliland uga degsanayd waxay ahayd siyaasad weyti ah ama sugid ah ilaa inta ay Somaliland daalayso ay ka daalayso maaragtay in ay noqoto dal la aqoonsan yahay oo calankooda qaramada midoobay maaragtay uu ka babanayo kursina ay ku yeelato maaragtay kuraasta qaramada midoobay. laakiin waxaad moodaa in Soomaaliya waqtigu ku dheeraaday sidoo kale siyaasaddaasina ay si fiican ugu shaqayn weyday. darteed madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha Soomaaliya heerankiisan dambe imika wuxuu bedelay siyaasaddii ay Soomaaliya maaragtay ku wajihi jirtay Somaliland ee maaragtay soo jireenka ahayd. wuxuuna ka dhigay maaragtay siyaasad qalafsan oo maaragtay qaybi oo xukun iyo cadaadin in Somaliland la cadaadiyo ah. haddaba waxaan wada ognahay Soomaaliya inaysan awood u lahayn fulinta qorshahaas oo maaragtay qorshahaas uu u baahan yahay awood fara badan oo dhaqaale mid ciidan mid sirdoon iyo maaragtay wuxuu u baahan yahay qorshahaas si loo fuliyo maaragtay dal dhisan oo maaragtay si Ethiopia oo kale ama dalalka kale Afrika ama bariga dhexe ku yaala kale dhisan maaragtay dhaqaalaha fara badan iyo ciidamada fara badan iyo maaragtay sirdoonka fara badan haysta ayuunba fulin kara qorshe noocaas oo kale. sidaa darteed maaragtay waxaan aaminsanayaa anigu Soomaaliya inay mar horeba samayn lahayd istaraatiijiyadaas dhaqan gelin lahayd aysan haysan maaragtay awoodda aysan lahayn sidoo kalena aysan haysan dalal taageera. Soomaaliya maanta waxay dhiirigeliyaa waxa weeye inay istaraatiijiyadaha fuliso waa dalal ku taageeraya arrinka oo maaragtay Shiinuhu ka mid yahay Turkigu maaragtay ka mid yahay sidoo kalena maaragtay ay Masar ka mid tahay. haddaba sidee loo rabaa in istaraatiijiyada loo fuliyo? istaraatiijiyada waxaa loo rabaa in loo fuliyo in maaragtay faceka koowaadba Somaliland laga hoos saaro maaragtay gobolada dhinacyada oo maaragtay dhinacyada laga soo koobo Somaliland bariga dhanka bariga laga sameeyo maamul
maaragtay ka taliyo labada gobol ee Sanaag iyo Sool iyo Sanaag labada gobol in si dhammaystiran Somaliland horta looga hoos saaro ama ugu yaraan boqolkiiba 80 laga hoos saaro kabacdi maaragtay danka galbeedka la maaragtay laga saaro gobolka Awdal iyo qaybo ka mid ah maaragtay gobolka Maroodijeex labada qorshe markaa sida loogu talagalay u fulaan in inta dhaxal iskugu yimaado inta dhaxalna maaragtay birta la isugu dhiibo gobol loo kala qaybiyo kabacdi maaragtay mid kastaba calan tuulo walba calan laga taago oo maaragtay sidaas ay ku baabado wixii loo oran jiray Somaliland Soomaaliyana ay dhulka sidaas ay maaragtay uga taliso daba qorshahaas fulintiisa san hore soo sheegay saddex dal baa maaragtay Soomaaliya ku taageeraya waa Shiinaha Turkiga iyo Masar saddexda dawladood maaragtay saddexda dawladood wadda leh ayaa ku taageeraya Soomaaliya Djibouti maaragtay laftirkeedu way ku jirtaa laakiin Djibouti ma aha dal maaragtay qorshaha intaas leeg maaragtay fulin karo ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo sidoo ahaan iyo maaragtay Djibouti ma aha dal maaragtay Somaliland soo sameeyay laakiin iyada waxa looga faa'iideysanayaa meesha ku taalo istiraatiijiyadda meesha ku taalo oo ah meel maaragtay qorshahaas muhiim u ah fulintiisa ayaa looga faa'iideysanaya haddaba qorshahaasi inuu fulo ama inuu fashilmo waxaa sabab noqon kara qorshahaasi inuu fulo iyo inuu fashilmo waxaa go'aamin kara laba qodob qodobka koowaad boqolkiiba 80 buu maaragtay uu go'aamin karaa inuu qorshahaasi fulo ama fashilmo waxaana weeye istiraatiijiyadda iyo siyaasadda ay Somaliland ku wajahdo weerarkaas iyo iyaba sii daba taala midnimada reer Somaliland intay leegtay dadka reer Somaliland ay noqdaan maaragtay sida farahaas oo kale oo aan lahayn meel laga soo dhex galo waad kaanaysaa in maaragtay qorshahaasi fulo oo maaragtay uu guuleysto haddii laakiin la helo daldaloolo badan oo maaragtay laga soo dhex geli karo oo maaragtay meelo badan oo weak points badan haddii laga helo Somaliland qorshahaasi si fudud ku fulaya oo maaragtay maadaama dalal waaweyn oo quudihii adduunka ay dabada ka riixayaan fudaanaysa inuu fulo haddii laakiin dee maaragtay dowladdu ay ka shaqayso midnimada dadka sidoo kale ay siyaasad cad ay ku wajahdo maaragtay qorshahaas halista arigaas ugu daraysanaya oo halkaas ku istaagaya qodobka labaad waa boqolkiiba 20 keliya waxaana weeye maaragtay hadba taageerada ay Somaliland ka hesho dalalka ay saaxiibka la tahay ee Taiwan ugu horeyso Ethiopia Israa'iil iyo Mareykanka taageerada siyaasadeed maaragtay ka dhaqaale iyo ka military ay ka hesho dalalkaas ayaa maaragtay weeye qodobka labaad laakiin maaragtay waa boqolkiiba 20 keliya maaragtay aniga akhrintayda boqolkiiba 20 keliya tan qodobkaas fiiriya waxa ka muhiimsan waxaasoo dhan midnimada dadka reer Somaliland iyo inaan la helin meel maaragtay laga soo dhex galo